Haddii lagu yiraahdo adigoo soconayo ayaad lacag samayn kartaa, waa sax. Application-kan Sweetcoin adigoo soconayo ayaad lacag ku samayn kartaa. Waa application Sweetcoin ah. Meel walba aad u socoto marka aad soconayso suga ay start leedahay, tilaabo walba aad qaadid waxaad samaynaysaa lacag dakhli ah. lacagtaas har u dambe meesh rabta ayaad u rugun kartaa. Sweetcoin fikradda hadda oo u diyaarsan yahay waa dadka rabaan Sweetcoin-ka ee iska laa waxay u baahan yihiin inay ku dhigaan barnaamij la lahaay Sweetcoin sida lacagta Bitcoin, Litecoin, lacagaha cryptocurrency-ga magac u leeyihiin oo loo isticmaalo saas ay rabaan inay u bedelaan oo isaguna magaciisa noqdo lacag la dhahayo Sweetcoin. marka lacagtaasna qaabka aad rabto ayaad u rugun kartaa, PayPal waad ku bixi kartaa iyo qaabab kale. marka haddii aad rabto muuqaalkan ayaan sharxi doonaa, fadlan muuqaalkan noo qurxi oo like noo saar, noona share garay si saaxiibo badan u gaarno. marka application-ka ayaan dhexgeli doonaa si sharaxaad gaaban ugu bixino saaxiibo. marka si aad u jeedaan application-ka ayaa noo soo kacaya. marka application-kan adigoo soconayo ayaad lacag ku samayn kartaa. marka waxaan kula wadaagi doonaa haddii aad tahay qof inta badan ba soconaynin, waxaan kula wadaagi doonaa adigoo jiifo in lacag ku samayn karto. waa khiyaano yar aan u mari doono lacag muuqaalka aan ku soo diyaarin doonaa oo halkan ashirkan maanta ugu marti la garin inaan kuga hadlo qaybtaas. marka sidan marka aad u soo gasho aniga hadda waa ii furan yahay lacag. marka aad kugu horeyso aad soo gasho waxa ku leeyahay kaliya ka hir Google-kaaga ama Facebook ayaad ka hiraysaa. marka san u soo gasho Gmail-ka aad ku leedahay Google-ka waad ka hiraysaa oo sign up baa ku leedahay. si tirisa waa ku soo kici doonaa. marka ku soo kaco sida u jeedaan aniga hadda ma soconayo meel baan fadhiyaa. laakiin haddii aad tahay qof soconayo meeshan oo xisaabtan ku qoran oo 76 ah way shaqayn doontaa. marka inaad fahanteen baan u maleynayaa waa application lacag ku samayn karto. marka waxaan leenahay unaga marka application-kan adigoo soconayo ayaad lacag ku samayn kartaa. marka application-ka waa application aad u gaaban, sharaxaad badan ba uma baahno. marka aad soo gasho waxaad kaliya ku hiraysaa waa iska diiwaangelintiisa waa inaad ku xirto Gmail-kaaga ama Facebook-gaaga saas ba kugu kacan yahay waadna isticmaalaysaa sida aad ugu jeedaan. qofkan waxa leeyahay soo socdo lacag sameey, tilaabo walba ayaad lacag ku samayn kartaa. qaabab saas ay meelahan ku qoran sida ugu jeedaan. marka waxaanu leeyahay suugo yar yar oo waxa kaga iibsan karto. marka haddii Sweetcoin-tan aniga hadda sida u jeedo Snapcoin waxay iigu jirtaa oo hal ah $1 Sweetcoin-kan ayaan haystaa iyo 12 cent meelahaas ah. marka adiga haddii aad lacag fiican ku haysato Sweetcoin-ka waxaad samayn kartaa waxaad iibsan kartaa qalabada oo dhexdiisa yaalan sida suugaga oo caalamiga waxyaabaha lagu kala iibsado ayuu saasba u shaqeeyaa oo waxaadna waad ka iibsan kartaa. marka saas aad tahay aniga hadda ma soconayo laakiin haddii aan socon lahaa meeshan xisaab ay iigu darsami lahaayeen. marka haddii aan ku wadno waxyaabahan meeshan yaalan sida hadda qalabkan waxyaabo lagu iibiyo ba jira shopping buu leeyahay oo halkan qaybta hoose ah. marka aad ku dhufato saad u jeedaan waxaan bal faalinayaa oo iib ah mobilada sida earphone-ada dhigaha mobilada ama Bluetooth. waxyaabahan waa waxa iib ah waan iibsan kartaa sida ay ku sheegayaan Amazon qaab Amazon ahaan ayaad ka iibsan doontaa. lacagdan waa lacag Sweetcoin ahaan ayaad ku bixin doontaa. marka waxaan u maleynayaa barnaamijkan inaad fahanteen. marka lacagdaadii qaabka aad doonto ayaad u rugun kartaa haddii lacagdaada ku bato. barnaamijkan marka qaabka lacagda lagula baxo iyo qaababkiis kalena dib ayaan ku soo sharxi doonaa. marka barnaamijkan sidii hore ugu sheegnay lacag la bixitaankiisa saas uma fusnaa. dadka iska leh barnaamijkan waxay daneynayaan in lacagdan u rugan qaab lacag ahaan ayaga leh inay u rugan ayaan daneynayaan oo saas ba fikradooda tahay. marka dabcan muuqaalkan halkan aan ka soo koobaynaa. isku soo laabad wanaagsan asxaabta channel-ka.